waxay u qaybsantaa laba qaybood niyadu ama laba shaqo bay qabataa waxay kala saartaa waxyaalaha cibaadada loola jeedo iyo waxyaalaha caadada loola jeedo مثلا qofka janaabada lagu leeyahay ee qubaysanaya ama qofka boosasa jooga ama kulayl buu qubaysan karaa iyo si baahi adduun ah ama wuxuu qubaysan karaa camalkii ahaa inuu qubays laga rabo oo waajib ku tahay inuu qubaysto sida la leeyahay niyada ayaa kala saaraysa qofku ficil ahaan isku wax uu qabanaya biyo qaadanaya oo isku daadinaya laakiin waxa kala saaraya inuu waajibkii ka rogmo iyo in uu ka rogmin waa niyada haddaad ujeedo aad leedahay inaad qabowsato hadafkaagu yahay inaad qubays aad u qubaysanayso xogaa soo kulaato shaqada ku soo kulaato markaad dhammaystiraateeda wallahi qubays waajib ah lagu lahayo haddii kaasan kolay biyaa la isku daadin lahaa biyihii isku daadiyay waxba kaa sixmaya maxaa dhaca niyaddii baa kaa maqan marka waxaa la yidhahdaa cibaadada waxay kala saartaa niyadu cibaadada iyo waxaan cibaado ahayn waxay sii kala saartaa rutabul cibaada qofka laba ragca tukanayo salaada subaxiga laga rabo masaajidka soo galay iyadoo subaxigii la aqiimayo ama gabadha gurigeeda ku tukanaysa subaxigiina hadda waqtigiisii joogo labada ragco ay tukanayso waxay rabtaa inay tukato labadii sunnada ahayd iyo labadii faralka ahayd salaada subaxiga maxay ku kala saaraysaa waa niyadda laba ragco ay tukatay haddana laba kale ay tukatay ma labadii horaa subxi ah oo waajibkii ah mise labada dambe maxaa kala saaraya niyaddeeda haddii kale waa isku diyihin waa isu ogyihin marka cibaadada rutabkeeda iyo noocyadeeda laftigeeda iyo darajaadkeeda ayay niyaddu kala saartaa waxaa kaloo niyaddu ay qabataa shaqo kale oo waa maxay qasadka iyo ujeeddada laga leeyahay cibaadada tan ma ilaahay dartii baa loola jeedaa mise wax kale ku jira meesha culimmadu waxay dhahaan haddii qofku uu cibaadada marka hore uu niyeysto kasoo qaad nin qaari ah oo cod qurux badan ayaa salaadii galay markuu salaada galayay inuu waajib guto oo ilaahay dartii qur-aankii akhriyo salaad tukado ummadda tujiyo buu rabay xoogaa waxaa ku soo xirtay dad uu qiimaynayo alla ilaa caawa codkaaga maanta bal sii qurxi buu yidhi culimmadu waxay dhahaan haddii ay iska hor timaado niyad saalixa oo sax ah kabacdina niyad xun oo istustusa ay ka daba timaado waxaa la eegayaa maxaa horreeyey hadday niyadda saalixa horreysay inta siyaadadaa baa ka buraysa laakiin haddii camalku aasaasiisku markii horeba ujeeddadiisu istustus ahayd oo aysan ilaahay darti ahayn sideedaba wax ansaxaya ma jiraan sidaa laaligeed xadiiskan waa ulusulcilm